Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo leeyahay Soomaaliya ilaa intii ay burburtay dawladdii Soomaaliya la oran jiray siyaad barre ay Soomaali kala wada carartay ay isdishay wuxuu jundi badan iyo tacab badan oo maal iyo adduuniya wax walba leh u galiyay sidii mar labaad ay cagooda isku taaglaayeen Soomaali wuxuu tacab badan galiyay siduu wadaadashiin la Somaliland iyo Soomaaliya laakiin madaxweynaha waxaan u sheegayaa waa inuu isweydiiyaa xagga salaadana ka xidhmi laadahay Soomaali 30 sano ilaa shirkii carta ayuu adduuniya wax walba galiyay waxa xagga ka xidhmi laadahay waa inuu madaxweynuhu isweydiiyaa oo madaxweynaha talo siinaa mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliyeed ee maanta adduun weynuhu aqoonsan yahay ayaa tahay Soomaalida ad intaasoo dhan tacabka gelinaysid beelaanu ka soo jeednaa mayna Soomaali ahayn maana Soomaalida ku jirin dibtanna haysta Soomaali kala baabiisay tikoorkan iyo cusriyadan ay Soomaali nagu haysay Ilaahay baarkaya ayay Soomaali ayna waxba ugu hagaageen adiguna arinta aad gelinaysaa waa xaweeyaan arin aan suurta galeen inay Soomaali gacanta isku taagto ilaa la xalilo waliba khaasaan adiga xilba ka saarane ad intaad shir u qabatid Soomaali waxgaradkooda abwaanadooda mutacalimadooda madax dhaqamkooda ad gogol u dhigtid Jabuuti ad tiraado waa bal sheega ummadani dambiga ay gashay dambigan aan lahayn moogtahay dambigan aan lahayn moogtahay loo yaraan loo qabaneen dambigan aan mudaba lahayn xukunkan dheeraaday ee socda ee isba taageen bal inaad weydiisid waxgaradka Soomaaliyeed haddii madax tahay haddii aqoon tahay ayaanu ka codsanayna xilba ka saaran ayaynu noqonin arintaada oo lagu sufeenin gabaygii gaariye uu lahaanin daweel leeyahay dambi uu bad leeyahay inuu daarmo ogolo isaga u daranta yaan lagu sufeen madaxweyne arintan wax ka qabo ugu dambeyn Boqor Axmed Iimaan warsame boqorka beelaha Gabooye ayaa sheegay in shahaadooyin iyo abaalmarina ay guddoonsiin doonaan abwaan Yuusuf Shaacir oo soo bandhigay maanta lagaga hadlayo takoorka ay bulshadu ku hayso beelaha Gabooye moogtahay media ku wareegaya marka hore waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo madax dhaqameed badan abwaano aqoonyaano iskugu jira oo in badan dhawaaqooda ka dhawaaqay arintan fuquuqa ama haybsooca ama tikoorka inay tahay arin xun oo ku xun islaamnimada ku xun bini'aadanimada ku xun Soomaalinimada oo iyagu reegooda ka dhiibtay waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay Ilaahay ay ka saaysiyo waxaan kaloo u mahad celinayaa dad badan oo iyaga qudhidooda qulubta nagala socday oo arintan ka xun laakiin ayna fursad u helin inay arintan soo bandhigaan laakiin diidan oo u arkay inay dhaqan xun tahay waan mahad celinayaa waxa kale oo si gaar ah ugu mahad celinayaa abwaan Yuusuf Shaacir oo isagu in badan arinta badan galiyay judi badan galiyay waqti badan galiyay sida waxaan u suuri laayeen isagana waanu mahad celinayna wuxuuna istaahilaa in la siiyo aanu siino waanu ognahay insha Allah ta'ala waqtiga soo socda isaga iyo abwaana badan iyo madax dhaqameedna waxaan siin doonaa waxaan ku xusno